Haykal ayaa soo bandhigay jacaylkiisa cusub taas oo baraha bulshada qabsatay dadkuna ay wax iska weydiinayeen sawir uu la soo galay gabar sidoo kale lagu sheegay in xaaskiisa ama jacaylkiisa cusub iyo gabadhii ay ka masirtay boqorada isteelka sababtayna in gebiyahaanba muuqaaladii Haykal ay la duubtay ay ka saarto baraha bulshada gaar ahaan aalada TikTok ay ahayd gabadhii ka dambeysay. Haykal ayaa muddooyinkii ugu dambeysay la soo dhaafay waxa uu ahaa mid safaro kala duwan ku gaala bixinaya gobolada Somaliland kaas oo kaligiis ah. Kadib arrintani waxay banaanka timid markii boqorada isteelka ay gebiyahaanba ka tirtirtay bogga ay ku leedahay aalada TikTok muuqaaladii wadajirka ahaa ay wada duubi jireen, taas oo dadka badankoodu ay shaki ka muujiyeen kuna tilmaameen in boqorada isteelka iyo Haykal uu khilaaf soo kala dhex galay ayna u badan tahay in ay kala tageen. Haddaba gabadha ay ku kala tageen iyo sidoo kale gabadha la sheegay in ay ka masirtay boqorada isteelka ayaa banaanka la keenay. Sawiro uu la galay Haykal ayaa aad ugu baahay baraha bulshada, taas oo gebiyahaanba noqotay mid siyaabo kala duwan dadku ay uga rayi dhiibtaan. Si kastaba haatay Haykal ilaa hadda afkiisa kama waxa xaqiijin in ay kala tageen boqorada isteelka iyo in ay wada joogaan. Sidoo kale boqorada iyaduna waxay ahayd mid marka baraha bulshada ay soo galayso muuqaalo kala gedisan welibana hees u badan oo calaacal ah ay soo duubayso, taas oo gebiyahaanba xaqiiqda ay xaqiijinaysa iyadana ay tahay mid bulshadu ay siyaabo kala duwan uga rayi dhiibanayeen kuna tilmaameen in Haykal iyo boqorada isteelka waxa la sheegaya in uu khilaaf soo kala dhex galay ayna ka dambeysay arrintan masiirka ay ka masirtay gabadha Haykal uu isla soo sawiray xiriirka hoosena uu la sameeyay in ay tahay mid keentay in gebiyahaanba ay isku dhacaan ugu dambeyn la soo wariyo in ay kala tageen. Waxaana muuqataa in waqti xaadirkan Haykal iyo boqorada isteelka labaanihii aadka lagu faraxsanaa baraha bulshada saameynta ku lahaa in maanta ay ka dhex tolan tahay, taasna ay tahay mid muujinaysa in mid kastaba kaligiisa uu u dalxiisayo meel cidlo ah oo aanay la joogin lamaanihiisa ama sayigeeda. Waxaana muuqataa in Haykal iyo boqorada isteelka sida caadada u ah in ay ahaayeen kuwo aan kala tegi jirin, wada socon jiray, muuqaalo wada duubi jiray, sidoo kalena ay faraqa is haysan jireen. Hase haatee wax badan oo baraha bulshada ay ka soo muuqdeen dad fara badan oo carabka ku haya ugu dambeyn ay carabka ku kala kaxeeyeen. Lamaanahani ayaa gebiyahaanba waxay ahaayeen kuwa ka suntan lamaanayaasha kale saameyn ku leh baraha bulshada iyo guud ahaan miidiyaha. Hase haatee arrinta soo kordhay ee khilaafka sababtay in gabadhani uu ka raaco Haykal ayaa gebiyahaanba waxa uu ahaa mid baraha bulshada ku baahay, taasina ay keentay inay aad u masirto boqorada ugu dambeyn ay ka timaado magaalada Hargeysa ayna dib ugu noqoto magaaladii ay ka timid ee Muqdisho in muddo aan halkaasi ku sugnayd. Waxaana arrinku u muuqdaa mid siyaabo kala duwan dadku ay uga rayi dhiibanayeen marba mar ka dambeysa xaaladuna ay tahay mid u muuqata boqorada isteelka iyo Haykal in waqti xaadirkan ay waajahayaan xaalad iyo marxalad cusub oo hor leh, taas oo keenaysa in boqorada isteelka iyo Haykal ay noqdaan kuwa siyaabo kala duwan bulshadu ay uga rayi dhiibteen. Si kastaba haatee muuqaalada iyo sawirada lagu baahiyay baraha bulshada Haykal iyo gabadha cusub la sheegay in xiriir uu kala dhexeeyo ayna ka masirtay boqorada isteelka ayaa aad u qabsaday baraha bulshada, taas oo keentay in dadku siyaabo kala duwan ay uga rayi dhiibtaan kuna tilmaamaan in boqorada isteelka ay degdegtay, sidoo kalena Haykal uu yahay shakhsi degan, sidoo kalena ah mid aan ka suurtoobin in xaaskiisa uu cidla uga tago. Hase haatee khilaaf u dhici karo. Si kastaba haatee muuqaalada iyo sawirada ku baahay baraha bulshada ayaa wax walba ka turjumaya, waxaana yihiin kuwa cadaynaya go'aaminaya shakhsiyadda lamaanayaashan iyo guud ahaan mustaqbalkooda, maadaama arrinku uu yahay mid dadku ay in badan saadaalinayeen kala tagooda iyo khilaafkooda. Hase haatee dad fara badan ilaa iyo hadda ma yaqiinsana mana xaqiijin arrintaasi, labadoodana kama hadal. Hase haatee waxyaabaha ay baraha bulshada ka sameynayeen iyo kala ahaanshaha ayaa ah mid dareen ku abuurtay bulshada iyo muuqaalada sawirada ula soo galay gabadhan oo la sheegay in boqorada isteelka ay aad uga carootay, sidoo kalena ay tahay mid waqti xaadirkan keentay arrinka khilaafka dhexdooda iyo guud ahaan kala tagooda. Kama waxa xaqiijin in ay kala tageen boqorada isteelka iyo in ay wada joogaan. Sidoo kale boqorada iyaduna waxay ahayd
mid marka baraha bulshada ay soo gelayso muuqaalo kala gedisan welibana heeso u badan oo calaacal ah ay soo duubayso, taas oo gebi ahaanba xaqiiqda ay xaqiijinaysa iyadana ay tahay mid bulshadu ay siyaabo kala duwan uga ra'yi dhiibanayeen kuna tilmaameen in Haykal iyo boqorada isteelka waxa la sheegaya in uu khilaafa soo kala dhex galay ayna ka dambeysay arrintan masiirka ay ka masiirtay gabadha Haykal uu isla soo sawiray xiriirka hoosena uu la sameeyay in ay tahay mid keentay in gebi ahaanba ay isku dhacaan ugu dambeynna la soo wariyo in ay kala tegeen. waxaana muuqataa in waqti xaadirkan Haykal iyo boqorada isteelka labaanihii aadka lagu faraxsanaa baraha bulshada saameynta ku lahaa in maanta ay ka dhex tolan tahay, taasina ay tahay mid muujinaysa in mid kastaba keligiisa uu u dalxiisayo meel cidlo ah oo aanay la joogin lamaanihiisa ama sayigeeda. waxaana muuqataa in Haykal iyo boqorada isteelka sida caadada u ah in ay ahaayeen kuwo aan kala tegi jirin, wada socon jiray, muuqaalo wada duubi jiray, sidoo kalena ay faraqa is haysan jireen. hase ahaatee wax badan oo baraha bulshada ay ka soo muuqdeen dad fara badan oo carabka ku haya ugu dambeyn ay carabka ku kala kaxeeyeen. lamaanahani ayaa gebi ahaanba waxay hayeen kuwa ku suntan dhammaanayaasha kale saameyn ku leh baraha bulshada iyo guud ahaan miidiyaha. hase ahaatee arrinta soo kordhay ee khilaafka sababtay in gabadhani uu ka raaco Haykal ayaa gebi ahaanba waxa uu ahaa mid baraha bulshada ku baahay, taasina ay keentay inay aad u maseerto boqorada ugu dambeyn ay ka timaado magaalada Hargeysa ayna dib ugu noqoto magaaladii ay ka timid ee Muqdisho in muddo aan halkaasi ku sugnayd. waxaana arrinku u muuqdaa mid siyaabo kala duwan dadku ay uga ra'yi dhiibanayeen marba mar ka dambeysa, xaaladuna ay tahay mid u muuqata boqorada isteelka iyo Haykal in waqti xaadirkan ay waajahayaan xaalad iyo marxalad cusub oo hor leh, taas oo keenaysa in boqorada isteelka iyo Haykal ay noqdaan kuwo siyaabo kala duwan bulshadu ay uga ra'yi dhiibteen. si kastaba haatee muuqaalada iyo sawirada lagu baahiyey baraha bulshada Haykal iyo gabadha cusub la sheegay in xiriir uu kala dhexeeyo ayna ka masiirtay boqorada isteelka ayaa aad u qabsaday baraha bulshada, taas oo keentay in dadku siyaabo kala duwan ay uga ra'yi dhiibtaan kuna tilmaamaan in boqorada isteelka ay degdegtay, sidoo kalena Haykal uu yahay shakhsi degan, sidoo kalena ah mid aan ka suurtoobin in xaaskiisa uu cidla uga tago. hase ahaatee khilaaf uu dhici karo. si kastaba haatee muuqaalada iyo sawirada ku baahay baraha bulshada ayaa wax walba ka turjumaya, waxaana yihiin kuwa cadaynaya go'aaminaya shakhsiyadda lamaanayaashan iyo guud ahaan mustaqbalkooda, maadaama arrinku uu yahay mid dadku ay in badan saadaalinayeen kala tagooda iyo khilaafkooda. hase ahaatee dad fara badan ilaa iyo hadda ma yaqiinsana mana xaqiijin arrintaasi, labadoodana kama hadal. hase ahaatee waxyaabaha ay baraha bulshada ka sameynayeen iyo kalyahaanshaha ayaa ah mid dareen ku abuurtay bulshada iyo muuqaalada sawirada ula soo galay gabadhan oo la sheegay in boqorada isteelka ay aad uga carootay, sidoo kalena ay tahay mid waqti xaadirkan keentay arrinka khilaafka dhexdooda iyo guud ahaan kala tagooda.